wixii xamar ka dhacayna anigoo hoggaan Soomaaliyeed heredida ka horeeyo waa harkii hal isku ugu yiri Puntland waa hoggaanka Soomaaliya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar diinta iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay bisha Ramadaan Allah noo xoojiyo Allah nagu aadiyo Allah noo barakeeyo midnimada iyo jiritaanka Puntland laga shaqeeyo aad baa wada maasantay wuxuu yiri dambe way ugu celin ciyaaraha oday hore Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay baan ahay laakiin waxaan ka dan qaadan mana u soo diyaar garoobin ورالك وكرالي قرينا يا بشدة هيك على الكعيود وشرفت عليه واحد مودا هذا واحد كان هم هالنقيات التوريس ومرو عشق إلى الديرية وقارب وأدتك الصومالية أدتك ريب تلاسير ديران وشرفت عليه أي أشرع عليه وحالينا لما شعبك الصومالية ملك استهشوا أما شعبك ريب تلان أنا وحنا ورسيتك الصومالية ورسيتك بنتلان وحن كلام ربنا لأن يرى الصومالية دليل ريب تلان شخصيات كدباتينيا وانو تلمامي دونا xilliga ay gaarto insha Allah waanu tilmaami doona waxa leena Puntland waxay saarantaa tareenkii ka daga waa la tilmaamaya waana laga qabanaya bulshada waxaan sheegaynaa oo kale waxa weeye dadka reer Soomaaliyeed Soomaali kala tagamayso Soomaalina waxay noqonaysaa wada ogol dawladda Puntland iyo madaxweynaheeda Professor Saciid Cabdullaahi Dani horseedka Soomaaliya dadka reer Puntland horseed bay u yihiin annaguna waxa la rabaa maadaama reer mudug nahay ama reer Puntland nahay inaan horseed u noqono waxaan ilaalinaa Soomaalinimada aan ka shaqeyno wada jirka aan ka shaqeyno midnimada aan ka shaqeyno wixii xamar ka dhacayna anigoo hoggaan Soomaaliyeed heredida ka horeeyo waa harkii hal isku ugu yiri Puntland waa hoggaanka Soomaaliya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar diinta iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay bisha Ramadaan Allah noo xoojiyo الله نوجا أديو الله نوبر كيو من دماغ يشرتاك بطلنا على الشقي هذا أول ما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته